السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول مال يا جعيل هذا بكيبا دور لهيد أذيقا قصة عجيبة. هل كان كان الكيفتينكا مقع يقول وادين حسين شعب كسو دوادا مقالك نمات الصاحبيال إسلام با قرية دي كسو بحضي وحين أراكتي سدح وضي أو قرية دورتي سفرية أو حراتو وين يعطي وحين كتري وحن دريميا إن السفر تهين باهيسو ee soo gala guriga si aad noola cuntaan waxaan haysano. Odayaashii waxay weydiiyeen ninkaagii ma joogaa, waxayna ku jawaabtay maya, banaanka ayuu jiraa. Waxayna dhaheen ma soo gali karno ninkaaga hadduu maqan yahay. Galabtii markuu yimaaday way u sheegtay qisadii odayaasha, wuxuuna yidhi u sheeg inaan imid soona gala guriga dheh. Eegiina waxay ku jawaabeen ma wada gali karnaa guriga, mid ka mid ah adiga iyo ninkaaga doorta. mid ka mid ah ayaa soo baxay oo yidhi waxaa la yidhahaa guul, saaxiibkaygana waxaa la yidhaahdaa hanti iyo maal, kan saddexaadna waxaa la yidhaahdaa jacayl. islaantii waxay ku laabatay ninkeeda waxayna u sheegtay qisadii odayaasha. hadduu warkaasi run yahay u yeer maal, waxaan rabaa inuu faqriga naga saaro gurigeennana hodannimo ka buuxiyo. iyadiina waxay tidhi oo waxaad rabtaa inaad dhib la'aan dhaqaale hesho, aan u yeerna guusha iyadaa hodannimana gaarsiinaysay. gabartoodii oo dooda dhageysanaysay waxay tidhi soo ma habboona inaad u yeertaan jacayl. waxayna qaateen taladii gabarta, waxayna waceen kuna marti qaadeen inuu soo galo guriga jacayl. jacayl markuu soo istaagay labadii kalena guul iyo dhaqaale soo dabagaleen. islaantii waxay tidhi waxaad iga casutay inaad mid kaliya doorto, haddana waad soo wada kacdeen ee maxaa jira? waxayna ku jawaabeen labadii kale haddii aad dooran lahayd guul iyo maal kaligii baa ku raaci lahaa. meel kasta oo jacayl waxaa guul nolol wanaagsan, maxaa yeelay jacaylka ayaa dhaliya guusha keenta oo qiimo badan. maal aanan guul ka horeynina wax qiimo ma leh. sidoo kale wax qiimo ma leh guul aad ka dhalisay shaqo aadan ku seexanin ku soo kicin fikraddeeda. haddaba guul iyo kasta waxay ku bilowdaan jacayl iyo hilow ku dhaca qofka, una dhaliya fikir badan, dadaal xoog badan, karti dheeraad ah, waxqabad habaysan. intaa kadib ayaana la gaari karaa guul, wanaag, hodannimo, farxad iyo raaxo qiimo gal leh. qof kasta oo sheega inuu gaaray guul uuna horay u caashaqin ugu fikirin wuxuu ku jira dhalanteed ama riyo. haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed waxaan wada ognahay inaan raadinayno guul aan dusha kaga dhacno oo aan ku helno qaraabanimo, shaxaad, eexasho, xatooyo, qabiil iyo wixii la mid ah. waana midda naga dhigtay maanta aan halka aan joogno, oo naga dhumay dariiqii aan ku gaari lahayn guusha iyo wanaagga aan raadinayno mar waliba. waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. haddii aad nagu cusub subscribe haddii aad ka mid tahayna asxaab like dhac ku sii si aan u soo badino muuqaalan oo kaleeta. waadna mahadsantihiin saaxiibayaal. in share gareeya kanaalka si uu saaxiibo sida oo kale u fiican. waadna mahadsantihiin saaxiibayaal. intaan ku kulmi doono tan iyo muuqaalkan xiga fi amaanillah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.